Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga waan idin salaamayaa. Kusoo dhawaad Fahiima Show. Waxaa noo wadaa cilaan casharkeeni lixaad waaye. Lixuu marooyaa casharka. Marka maanta waxa waaye daamadoobiso ayaan soo diyaarsaday oo soo qasta oo bac ku soo shubtay. Marka daamoosida ayaan marinayaa insha Allah. Sidaasaan ku bilaaway. Dhaxda waa ka buubuuxinayaa. Waa cilaan waaweyn. Mid kale aan ku soo wareejinayaa mar labaad. Marka hadda naqshadaana dhinacaas ka saaray, dhinaca naqshad kale ka marinayaa. Hadda saa u jeedaan sabuurada cadeed waaye. Cilaan hadaa marinaysid waxa u baahan tahay iyo daamadoobiso inaad ku barbaratid sabuuradan cad. Haddii aad marinaysid kareenkan waxa u baahan tahay sabuurada madow inaad ku saaratid sababtoo ay isku soo baxayaan. Marka saddex naqshad markaa saaray, hal xarigaas u soo jiiday, halka xariga geesaha aan ugu soo sameynayaa sidaas. Saasa ku soo sameynaa. Okay. Marka sidaana u soo sameeyay qaybtaana sidaas oo kale. Marka waxaa ii harta qaybtaan saasa u jiidayaa. aad u fudud yahay. Waa naqshad weyn. Naqshadan waa dhowr naqshadood aan isku keenay sida u jeedaan. Sidaas marka u soo jiido geesahan kor ayaan dhibco ugu sameynayaa. Tan oo kale ayaa inta ku soo sameynaa. Sidaas markaa ku soo bogo sida naqshadaas oo kale ayaan kor dhibco ugu sameynayaa. kaas naqshadeeni koowaad sidaas ay ku soo baxday. Hadda naqshadii kale ayaan halkaan marinayaa insha Allah. Naqshadeeni inta saaranaynaa hadda. Hal mar asaas u soo wareejiyay. Dhaxda diilmaan ka gelinayaa. Hal mar oo kale ayaan ku soo celinaa marka. kor ayaan ugu sameynayaa wax yar oo diilimo ah. naqshadii labaad waaye. aaday u fududahay. waa daamadoobiso kaligeed. marka naqshadaana inta ka saaraya kadib dhaxda ka buubuuxinaa. marka abaayaasheeda cilaanka haddii uu idinku adkaado ama aheeto ay isdhahdeen naqshadaan oo kale way adag tahay, waa igu soo celi kartiin ama waa ii soo sheegi kartiin si ay idinku jilciyo ama naqshadii oo kale aan ku soo celiyo ama naqshado ka dhib yar. marka sidaasna sameeya. haddii jiraan casharo idinku adag ii soo sheega insha Allah. waxaa isku dayayaa cashiro fudud inaan idin soo geliyo. marka hadda intaa ka sii wadayaa. inta badan gabdhaha naqshadaana ku adag sida gabar walaashay ay soo wacday ii sheegtay. marka naqshadahaasna hadda soo gelinaya insha Allah iyagoo badan oo la fahmi karo qaabka iyo sida gacanta loo wareejinayo.
sida tan camalaa inta ka buubuuxinaya dhexda. haddaan sideeda ku daayo qashay noqonaya inaan dhexda buubuuxiyo waaye. marka haddaa cilaan haysatid waa kusii buubuuxsan kartaa meelahan hadda ani banbaneeye. haddaad rabtidna sidiisaa ku daaysan kartaa. marka naqshadan sidaanaa kusoo bogay. naqshadii saddexaadaa hadda halkaa marinayaa. marka qofka si gooniya u jecel cilaanka inuu barto oo ila soo xiriiri karaa. lambarkeyga idin reebayaa. fideogana iga soo wacdaan. naqshadihii aa sameysaan aa idinka soxo haddee idinka qaldan yihiin iyo haddee maasha allah sidii aa aniga u saaroo kale u marinaysaanbo. marka ani guule ii tahay gabdhaha soomaaliyeed inay cilaan bartaan. anigana aa idin baro oo wixii aan jeclahay ama wixii markaas aa aqaano aa idinkaga faa-iideeyo aad ayaan u jeclahay. marka waa idin soo dhaweynayaa. waa ila soo xiriiri kartiin. naqshadii saddexaadaa hadda wadaa. koraa wax yar ugu sameynaa farafare eh. kadib dhibcaan kor ugu sameynayaa. maasha allah cilaanka sidaas oo kusoo baxay. waa ujeedaan waa cilaanka daamadoobisada. marka meelahan bambanaan ah aniga soo reebay cilaan gaduudan ayaa loogu talagalay in lagu shubto oo cilaanka lagu buubuuxiyo si ay cilaanka iskugu soo baxo gaduud iyo madow. haddii aa adiga rabina waa iska dhaafi kartaa, dhib ma laha. marka saas waa ku daaysan kartaa. marka hadda wax yaraa rabaa inaan inta geesaha ugu buubuuxiyo oo fudud. naqshadaas yariistaa xagga ku sameeyey. intana mid kale aan ku sameynayaa. maasha allah cilaan aada u fudud. waqti badan kuguma qaadanayso. adigoo gurigaaga joogto isku day inaa cilaanka baratid. waa aada ayuu u fudud yahay. cilaan soo qaado lugahaaga gacmahaaga ku barbaro marka dambe waa baranaysaa insha allah. marka maasha allah cilaankeena sidaasaa kusoo bogay. waan soo dhameeyey. waa ujeedaan waa daawamadoobiso sidaan idin sheegay. cilaanaa ku buubuuxsanaysiin meelaha banaan. marka abaayaasheeda soo dhawaada dhammaantiin. maxaa la dhahaye haddaa igu cusubtahay soo dhawoow. waa ku mahadsantaa daawashadaada. subscribe dheh si aysan kuu dhaafin fideoyada dambe ee aan soo wado iyo cashiradeena xiga. sheer dheh comment hoos igu reeb. fikradihiina waan soo dhaweynayaa. cashirkan cashir lamida intaa ku kulmeyno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.